madaxweyne su-aasha ugu dambaysa oo aan rabo inaan kugula kaftamo madaxweyne koox kasta oo tartanka gelayso markay madaxweynenimo doonanayso waxa uu heliyo kooxo saaxiibo la ah marka ay xukunku qabsadaan markiiba waxay la wareegaan madaxtooyadii dadkaasi xitaa kuwa civil servantka la yidhaahdo oo meesha hore u joogay waa laga raacdeeya waxaa la wareego saaxiibadii madaxweynaha saaxiibadiis haddana waxay u dallacaan milkiilayaal waxaa la yidhahda milkiilayaasha dowladda meel walba istaagan waa laga baqaa madaxweynaha waxaa ka soo haro iyagaa milkiile ah dalkan milkiila qabsaday idinka waa ka tagteen kuwa milkiilayaal kalaa yimid way qabsadeen bisi haddaa soo noqotay milkiilayaashii weli ma wadataa oo ma noo keenaysaa milkiilayaasha ambassador dinaari aad iyo aad u maasanta horta ambassador waxaa ku sheegay kelmadda milkiilaha dowladda waa naga dambaysa annaga waageedii milkiila ma jirin waa run dooda madaxweynaha saaxiibo u leeyahay waxa inay jirto waa run kelmadda oo milkiilaha dowladda ah ka mid ma ahayn vocabulary aan la isticmaali jiray waagii annaga aan joognay waa cusub yahay hadduu nagu cusub yahay marka waa rajaynaydaa iyadana inuu oo cahdigan oo la dhammaado waxaa soo haray siyaasaddu tiro badnaan marka laga yimaado codaynta tiro badnaan ma aha waa abaabulnaan abaabulnaantana dad kooxa ah ayaa mar walba abaabul waxaan rabaa annaga waxaan nimiday ayagoo qaanuunka civil servantiga iyo qaalaha rayidka dowladdu aanu shaqayneyn commissionkuna aanu shaqayneyn qawaaniintii dib loo xoojiyaa la cusboonaysiyaa la jirsiiyey maanta waxaan nimiday ayadoo caadi wasiirka marka lasoo macaawo wasaaradda yimaado shaqaalaha jooga inta iska diro dhammaan kuwa cusub uu keeno maanta waxaan joognaa oon annaga meesha uga soo tagnay ahdi qofka shaqaalaha dowladda shaqaalaha rayidka aan la raacday karin ilaa safihii qaanuunku tilmaamaayey uu ku baxo waa ku jecelahay iyo waa ku necebaa horta aanan lagu bixi karin dadkii aan aniga madaxtooyada hadda adiga aad soo magac dhowday madaxtooyada dadkii shaqaalaha ayaan ugu imiday in badan oo kamida waa uga soo tegey ayagoo joogo oo weli ka shaqaynaad uga soo tegey iska bax mid kale iska yimaado marna ma jirin laakiin dowladdii waa ballaaratay 1000 qofoodaa shaqaalaha dowladda lagu sheegayo 5,000 qofoo gaaray madaxtooyada haddii 10 qofood ay ka shaqayn jirtay 150 qofooday gaareen yacni wixii way ballaarteen haddii marka dadkaas cusub ee soomaaliyeed ee shaqada soo galay loo wado maxay ahay dad uun xasan sheekh oo watay ahayn meeshaan uga soo tagnay ayagoo shaqaalo rayid oo dowladda soomaaliya u shaqeeya xasan sheekh sooma raacin waa ku hareen waa joogeen mugaan ka soo tegayn wixii aan xilka ku wareejinayna ka miday ahayn dhaqankaas dhaqan soo jireen ahay oo hor u jira waaye dhaqan aan annagu la dagaalano waaye waa qodob waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay awood leeyihiin inay ayagu horta awoodda gartaan madaxweynaha iyo inta ka hooseysa ee dowladnimada adeegayaal khaadimiin oo dadka u shaqeeya waaye ninka dadka qofka shaqaalaha kuu shaqeeyana sidaad rabta hadduu kuugu shaqeeyi waayo inta la canaanto oo digniin la siiyo oo maalinta dambe digniin la siiyo ama maalinta dambena hadduu digniinta qaado waa la iska raacdeeya horta dadka soomaaliyeed awoodda inay fahmaan ay rabaa